xuqaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa maanta kulan ballaaran oo iskugu yimaadeen kaga hadlayay go'aankii ay shalay dawladdu ka soo saartay balliga diiriye guuleed ee ku sheegeen inuu ahaa mid u dhacday si cadaalad darro ah iyagoo xukuumadda ugu baaqay inay dib u eegis iyo wax ka bedel ku samayso go'aanadii shalay toole ay ka soo saareen wasiiradu. xuqaasha iyo odayaashani kulankani ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa odayaal ka socday guddiyada tale iyo tawfiiq iyo dan iyo duco, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu kaga hadlaynaa cadaalad darradii ka dhacday gobolka shalay ee ay rideen wasiiradii laga soo diray magaalada Hargeysa ee xukuumaddu soo dirtay ayaanu kaga hadlaynaa. marka hore waxaanu leenahay afartiina wasiir ee arrinkii aanu ogeyn ee Barasaab iyo Maayar iyo madax dhaqameed midna idinkoo wax weydiin xukunkii gacantiina ku wadateen ku rideen waxaanu leenahay marka hore qoodin iyo xarday bajabta halka wixii ka dhaca waxa ka mas'uul ah beesha hantideedii la aasay ee hantidaasu ay ahayd mulki ay iska leeyihiin oo la ansixiyay oo uu ka yahay kii haddii alla ka dhigayo sharciga ee loogu ansixiyay dawladdu ugu ansixisay Soomaaliland ee taariikhda arkaysan ku qoran halka wixii ka dhaca waxa ku shuqul leh oo ay qarka isula saaran tahay in la isku dilo qarka ula saaran tahay waxa ka mas'uula wasiirada iyo yaada alla ka dhigay cid ka raaliya hal soo gaaro waan u leenahay intaan dhibaato damba ka dhicin la soo gaaro dadka hantidiisii la burburiyayna mahalla siiyo wixii hantida laga burburiyay qiimaheedu yahay hala siiyo dadka magaaladaas waxa yaala reer Soomaaliland oo qaran waxa ku xeeran beero berkado tuulooyin magaalooyin banka balcul ku yaala oo dhinac walba ka xiga iyagu waxay ka dagayeen taas oo kaliya haddii laga wada hadlayo dhulkan wixii magaalo laga dhiganayo iyo wixii dagaal laga dhiganayo haddii laga wada hadlayo beelaha yaalla inay ka wada tashadaan oo si nabadgelyo ay ku xallishaan iyo waajib ku yahay dawladduna ku ilaaliso. waxaan oo aragnay beelihii wadayir beel ka mid ah isu soo hubaysay oo rag ku dishay meesha dad nin lagu dilay nin lagu dhaawacay Ramadaan bilowgeed ninkii oo halkii laga wada hadlaa waxa laga gaaray ninkii horta ninkii dilay waa la soo xiray waxa ay in hoos loogu dhaadhaco oo laga xisaabtamo oo si wanaagsan labada bilood loogu kala wax qaado oo lagu heshiiyay halkii dawladdu kaba gelin beelana kaba gelin labada dhinac waa laga dayacay iyadoo dayaca ay qabaan iyo haddana ciidii wax ka dishay dul dhigtay iyadoo aan beela iyo cid kale u gurman baa dawladdu soo gashay waxa loo soo diray afar wasiir oo aan horeba loogu soo dirin gobolka Togdheer. markii hore waxaanu aragnay diristii la soo diray inaanay u qalmin kuwanu hawsha loo soo diray munaasibna aanay ahayn wasiirna ahayn wasaaradda ay hawsha lahaydna aanay ahayn wasaaradda hawsha waxa weeye wasaaradda dakhiliga wasaaradda deegaamaynta wasaaradda amniga wasaaradaha u xilsaaran waa kuwa waxaan u aragnaa in boosa iyo ciyaaraha la soo diray boosa iyo ciyaaruna halkan ciyaar kama fina dil baaba yeel waxaan halkan baaq dheer aan uga soo jeedinaynaa golaha guurtiga golaha dhaqanka ee Soomaaliland madaxweynaha waxaan warbixinta aan soo jeedinayno kaga hadlaynaa mudaradii ay u geysteen gobolka Togdheer wasiiradii oo soo dirtay dawladdu ee Hargeysa ka yimid waxa uu ka abuuray wasiirka ciyaaruhu gobolka Togdheer ee Burco nabadgelyo darro hor leh. tan iyo xilliga ay soo saareen wasiiradu go'aanadani ku aadan balliga diiriye guuleed ayaa qayladhan xoogani ka soo yeedhay xuqaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer kuna tilmaamay inuu ahaa mid u dhacday cadaalad darro. Khadar Cabdi Saleebaan Hadhwanaag News magaalada Burco.